waa dhalinyaro mar waliba xooga saara wax akhriska iyagoo og muhiimadda ama faa'iidada gaarka ay leedahay in wax la akhriyo waxayna ku jiraan heerka koowaad ee jaamacadda inkastoo aanan halkan lagu soo koobi karin faa'iidada ay qofka u leedahay inuu wax badan akhriyo haddana waxaa muddooyinkii dambe magaalada Muqdisho lagu arkayay dhalinyaro isugu jira hablo iyo wiilal oo iyagu si joogto ah isugu yimaado goobaha wax lagu akhristo ee ku soo badanaya magaalada Muqdisho kuwaasoo isugu jira kuwa ay fureen dhalinyaro wax baratay isla markaana isku tagay iyo waliba kuwa kale oo ku yaalo gudaha goobaha waxbarashada Cabdiweli Bila Cabdullaahi oo qayb ka ah dhalinyaro aan kula kulmay goobta wax lagu akhristo ee ku dhex taalo gudaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed isla markaana ah wariye wax badan ka qoray arrimaha la xiriira dhalinyarada ayaa isagu ka waramaya muhiimadda wax akhriska Bismillahirrahmanirrahiim awlan assalaamu calaykum bahweynta daawanayo marka koowaadna waxaan u mahadcelinayaa Kaafiyo haddii aan ka hadlo muhiimadda ay leedahay in uu qofka bini'aadanka wax akhriyo ma ahan wax hal iyo labo iyo daqiiqad lagu soo koobi karo cid walba ka dhirsan muhiimadda ay markaas leedahay wax markaas inaad wax akhriso wax akhrisku waa kan ka dawi kara qof kula mid ka ah markaas gradkaaga ah waa midka kaga hormari karto sidoo kale wax akhrisku faa'iido badan buu leeyahay muhiimad badan uu leeyahay hal iyo labo lagu soo koobi karo qof walba oo wax akhriyaa waxa uu ka aragti iyo sidoo kale fikir badan yahay qofka aan wax akhrin marka wax akhrisku muhiimadiisu hal iyo labo lagu soo koobi karo Liibaan Axmed Xirsi waa hal-abuur waxa uu qayb ka yahay dhalinyarada hal-abuurka leh waxa uu qaab maasa ahaan uu inoogula wadaagayaa faa'iidada ay wax akhriska u leedahay bulshada aad iyo aad baad mahadsan tahay mawduucan la xiriira akhrislaantu waa wax ummadda Soomaaliyeed iyo Afrikaanka oo dhan ba adduunyada iyo horumarka ka reebay waana mawduuc runtii akhriskan iyo waxaan hadii lagu dadaalo aad ummaddu waan ficlaha laakiin nasiib darro dadkeenu inaanay ku baraarugsanayn bad moodayimka in dhawad baarar gabay ma tirin eriyadiisa iyo markuu axmaq waliba ku toosaan ka haray alaladkiisii in dargarad iyo ma arko eheladiisii ujeedadu samar bay ugu ijbaartaa inay dunida aqalka taan lagu ekaanay faalaha ku muuqda lagu ogaaday oo gidilacaba waxba lagu ilhaamayay abyan ma aha waxay gaaladu soo alkumayaan tayaxabanimo baa baaro aaday samadaas ogoobay ummadan wax baran ma laha iimaan Afrikaankan waxa dilay waa ogaal xumeey Afrikaankan waxa dilay waa ogaal xumeey aafaadka lagu dhaco lagu agoontoobay iyo aradka gabigeena helay uunka kala mooga aradka iyo dhibaatada hadan ayarka hikaaso ummadnimadu waxay tahay kuwa wiilayay aqriska iyo qoraalkaba ninkii lagu alhumeeyo imtixaanka moojeenikii darsiga eega kari waayay ardaynimadiisu inay dhaawacan tahay baa lagu ogaaday adduunyada aqoon iyo cilmi lagu adeegtay taariikhduna ogaal ma laha akhriska moojana ummad yahay qiraa'ada ku toos waad ajaranteen marka laga hadlayo bulshada Soomaaliyeed inta badan waxa lagu tilmaamaa inay yihiin bulsho aan muhiimad gaar ah siinin wax akhriska hase yeeshee muddooyinkii dambe waxaa gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho lagu arkayay dhalinyaro aad u fara badan oo iyagu diiradda saarayo muhiimadda ay leedahay in wax la akhriyo isla markaana bulshada ku dhiirigelinayo inay wax akhristaan dhanka kale Cabdisalaan Maxamed Yaasiin waa qoraada oo isagu xooga saara in wax badan la akhriyo si wax badan loo qoro waxa uu dhalinyaradu kula dardaarmayaa wax akhriska faa'iidada akhriska iyo muhiimadda uu leeyahay lama soo koobi karo qofka bini'aadanka kama maarmo cuntada iyo biyaha marka cabid iyo cunto sidoo kale akhriskuna wuxuu quudiyaa maskaxda bini'aadanka jirka marka faa'iido badan uu leeyahay sidoo kale caqabado badan hadda dalka ka jiro laakiin waxa soo korayo maktabadaha iyo bandhigyada buugaagta ummadana maalmaha ka dambeeyo waxay noqonaysaa ummad dhisan oo aqoonta iyo cilmiga ku bacayo sidoo kale waxa haysanaa qorayaal badan oo hadda soo baxay meel walba tagtid waxa ku arkaysaa dhalinyaro buug akhrinayso maktabadihii oo magaalo walba iyo gobol walba laga furay marka faa'iidadiisana lama soo koobi karo sidoo kale aayadii ugu horeysay ee soo degta quraanka 30 juz oo Ilaahay u doortay waxay ahayd iqra marka faa'iidadiisa lama soo koobi karo ummadana waxay tahay ummadii akhriska oo loogu talgalay inay cilmi iyo aqoon adduunyada ku hogaamiso iyo ilbaxnimada marka qofkii wax akhriyo iyo qofka wax akhrin ma sinna qof kasta oo wax akhriya qofka waxa si ka go'an ardayda jadwal inuu sameysto ugu yaraan isbuuci ama maalintii bagita oo akhriyo wax badan oo faa'iido xigmad oo waxay leedahay
hal buug oo aad akhridaa oo aad fahantaa waxay ka fiican tahay buuggaas adoo dib u qorto kale marka dadka qoraalka iyo mihnada wadaba dhammaan sidaas waay marka faa'iidada wax akhriskana aad u badan tahay qofka wax akhrinayo wuxuu u baahan yahay sabir iyo dulqaad marka qof ha sabir iyo dulqaad lahayn ay wax ma akhri karo marka akhriska iyo muhiimadiisana lama soo koobi karo marka waxa leeyahay wax badan akhri si aad wax badan u ogaato kaafi Sheekh Xuseen Hargal TV magaalada Muqdisho ardayga maanta muhiibadiisu marinta weeye marka minhaajka la yimicnayaan mililaa maskax fayuubaan cilmi ka maxday maalaya midab islaadan sida mareerka